بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هدان دول مرو waxa soo kordhay 24 saac ugu dambeeyay xaaladaha COVID-19 ee wadanka ka jira waxa soo kordhay 71 xaaladood oo rag ay yihiin 52 haweenkana yihiin 16 numberkaas 71 waxa laga helay 46 Jubbaland Banaadir 17 Puntland 6 Somaliland 2 dadka da'dooda u dhaxayso ee laga helay cudurkan hadii aan boqolleyda ka fiirino 20 sano wixii ka yar waa 5% 20 ilaa 39 72 40 ilaa 59 16 60 sano iyo inta ka weyna waa 7%. tirada guud ee numberka COVID-19 wadankeena ka jira wuxuu isugu tagayaa 1573 waxa uu geeriyooday 2 qof oo midna uu ku geeriyooday Banaadir midna uu ku geeriyooday Somaliland Ilaahay u naxariisto. tirada guud ee dadka dhintay waxay isugu tagaysaa 61 qofood waxa bogsatay 10 qofood ee hor leh tirada dadka bogsoodayna waxay isku gaaraysaa 188 aan ku dadaalno mar walba sidaan ugu hortagi lahayn xaaladda cudurkan xakameyntiisa waa cudur la xakameyn karo hadii Ilaahay yiraahdo la dadaalo in bulshada ay dhageysato wacyigelinta takhaatiirta khubarada taqaana cuduradan faafa iyo ay jeedinayaan in ma aragta nadaafada lagu dadaalo oo gacmaha mar walba la dhaqdo saabuun iyo wax nadaafiye lagu dhaqo in meelaha ciriiriga la iska ilaaliyo in markii uu qofka banaanka aadayo uu qaato banaanka u baxayo uu qaato afxirka taxadir zaid uu siiyo meelaha ciriirka markuu maraayo ama dadka badan ay joogaan inuu horta ka gaabsado hadii laga gaabsan karin laga taxadiro afka la xirto aan dadka la salaamin aan la isu dhawaanin la kala fogaado dadka cudurrada chronic qaba in xanaano gaar la siiyo dadka waaweyn oo tabarta daran in qofka hadii uu dareemo calaamadaha qaar kood inuu wacdo nambaradii loogu talagalay si uu u warsado kaalmo waxa jooga dhaqaatiir dad khubara ah oo siin kara waanooyinkii loogu baahnaa iyo dadaalo zaid ku bixinaya sidii qofkaas loo hagi lahaa inuu raadsado xanuunka haduu dareemo inuu raadsado xarumaha caafimaadka meesha ugu dhow lagu xanaaneyn doono waxaan mar labaad ku celinaynaa ka hortagga inuu ka fiican yahay daaweynta in lagu dadaalo cudurkan sidii loo xakameyn lahaa in la dhageysto dadka cilmiga u leh waanooyinkooda la qaato waxaan nagu soo foolay maalmihii ciidda Ilaahay nabad ha nagu gaarsiiyo waxaana looga baahan yahay taxaddar zaid ah waa in qof walba oo Soomaali ah uu ku dadaala in naftiisana uu marka horeeto badbaadiya dadka u dhowna uu badbaadiya oo qaraabada iyo saaxiibada iyo bulshada inteeda kale waajibna wada saaran waay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.